السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذن سلامة دمان ميلو البود أدونك كجوكتان مقعيقوا مريم كسو دوادا جانن كيغا سومال الرويال كوكن مانتا ولاشين مرين محي إذين هايسا وحي إذين هايسا مانتا بيو آد في أن فيتامين وجيركا دقايا oo kaala iska arga oo waqtiga qorraxda loogu talagalay waxaan ku dhihi karaa maxay ahayd ishaga jirkaaga waxaan ku dhihi karaa maadaama qorrax ay jirto aad u nuurinaya oo markaad maxay ahayd ishaga aad isticmaasho bariyo badan aad soobsato oo isticmaasho aad maxay ahayd qorrax korkaaga maxaan ku raahdaa laga dareemayo oo lagu leeyahay maanta ayaanta waad cadaatay maxaad samaysay maxay ahayd lagu dhihi doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo si qurux badan adiga iyo ilmahaaga waxaan ku dhihi karaa aad noqonaysiin qoys aad u qurux badan oo kaala iska arag ah oo jirkiisa nuurayo waa kana sida aad u jeedinsaan ayaan u hagaajiyay waxaan sameynayaa maxaan ku raahdaa isheeg liinta dubkeeda sare ayaan maxay ahayd isheeg xooganayaa waxaan u xooganayaa waxaan rabaa inaan maxaan ku raahdaa isheeg in biyaha aan markaan ku shiito caraf aan ka dareemo oo macaan aan ka dareemo carabkaygu macaan oo soo jiito waxaan ku dhihi karaa sankayga caraf aad u wanaagsan oo aragyo jirkayga waxaan ku dhihi karaa oo dhaqmayo kaala arag waxaan ku dhihi karaa nadiif ayaad noqon doontaa haduu Ilaahay raali ka dhigo way ku cajibi doonaan biyaha sidee aniga ii cajibiin ay adigana ku cajibi doonaan ma ahan inaad cadaa ma ahan inaad madowdahay qorraxdu waxa waaye korkaaga ayay ka soo baxaysaa waxaan ku dhihi karaa iftiin qurux badan ayaad noqonaysaa markuu nalku ku qabto ama qorraxdu ku qabto waxaan ku dhihi karaa dhiigaaga ayaa muuqanaya marka insha Allah taala aniga aad ayay ii anfacday adigana waxaan jecelahay inay ku anfici doonto waa kana saanan u hagaajinayaa aad u jeedid waxaan ku dhihi karaa qajaarka waad ogtihiin maxay ahayd ii sheeg hurdow leeyahay markaad maanta aad cabta caawo si fiican ayaad mudka u galaysaa waad arki doontaa insha Allah si fiican ayaad ugu xaroonaysaa mudka hurdo fiican ayaad helaysaa waxaan ku dhihi karaa liinta vitamin C kaala arag ah ayaa ku jiro oo waxaan ku dhihi karaa tii aad oraxda ka heleed iyo tii aad kaniin ka heleed ayadaadba ka helaysaaba marka insha Allah taala waa kana walaalahayga sidaan quruxda badan la ayaan u hagaajinayaa waa kana blenderka ayaan ku soo shubtay waxaan kale ku soo shubanayaa maxaan ku raahdaa ishaga liin dhanaan ayaan ku darayaa markaan saas ugu shubo waxaan kale ku dari doonaa 150 milligaraam oo sokor ah marka insha Allah aniga maxay ahayd ishag shamaamka ma isticmaalin sidaad u jeediin meeshas waxa ay ku jiro waa qajaar iyo liin iyo sokorton hadda ku daraayo oo kaliya ayaa iigu jira intaas waxaan ku dhihi karaa ayaan maxay ahayd waxaan kale ku darsanayaa 5 litir oo biyo ah ayaan ku darsan doonaa haduu Ilaahay raali ka dhigo maxay ahayd isheeg waxaad u baahan tahay biyo maxaan ku raahdaa aad qafiif u ah oo waxaan ku dhihi karaa markaad qorraxda ka timaada aad maxaan ku raahdaa ku nafisto oo maxaan ku raahdaa ilmaha ma sha Allah tabarakallah ay kuugu nafisaan oo aabba cabi karo oo hooyada cabi karto oo aad ma sha Allah tabarakallah oo ah waxaan ku dhihi karaa waxaan ugu shubi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo dhalayar oon ka soo gatay actionka oo kaal iska arag oo ilmaha markaad meel u saarto maanta dhan unuga xataa aan biyo cabi jirinin wuxuu maxay ahayd ishaag ilmaha wax waa loo qurxiyaa waa loo sharaxaa waa maxay ahayd ishaag meel ayaa loo saaraa marka insha Allah markaad meeshaas u saarto ilmaha waxay u maleynayaan wax bedelan markay arkaan aad ayay u xiiseynayaan marka insha Allah biyaha zaid ayay u cabayaan si ay u cabi jirin si ka badan ayay u cabayaan adiga ayaan arki doona marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah hadii aad ka heshiin hoos comment iigu soo qora waxay ii taa dhiirigelin maxay ahayd anigana maxay ahayd isha kama daali doono inaan wax kasta oo ila fiican oo aniga maxaan ku raahdaa ay anfacay inaan idin soo geliyo marka insha Allah walaalahayga qaaliga ah waa kana ayaan u soo sameeyay quruxda badan leh waxaan ku dhihi karaa waxaan u soo qaybinayaa dhaladii weyneedon ka soo gaday actionka iyo dhalayaro kale ayaan u qaybinayaa biyaha markaan u qaybiyo oon ku shubo biyaha meelahaas aan ku waxeeyo waxa kale ku dari doonaa baraf ayaan ku dari doonaa waxaan ku dhihi karaa waa wax yar oo oo gurigaaga ku yaal oon wax badan ka qaadanin oon qarash ka qaadanin oo kaala iska araga oo waxaan ku dhihi karaa wax badan aad ka faa'iidi doonto marka insha Allah taala waa kana walaalahayga saas ayaan ku soo habeeyay quruxda badan oo u jeedin marka insha Allah taala maxay ahayd ishaag ilmaha meel ayaa loo saarayaa meeshas markii loo saar waxaan ku dhihi karaa si yaro edeb ah ayay maanta dhan u isticmaalayaan kana saas quruxda badan qajaar ayaan dhaxda ka soo dhigi doonaa iyo liin dhanaan kale tood oo jarjaray waa kana soo jeedin barafkiyaan maxaan ku raahdaa isheegan hadda ku
xareeyuhaya siiro wuxuu noqonayaa aad iyo aad indhaha u fiican waxa la yiri wixii ishu aragto ayaa uurkuna deeqa liin dhanaan iyo qajaar ayaa iyagu jiro ayagana wax kana hadda ayaan ku soo habeynaya saas ayaan ugu soo habeynaya markaad meel yar aad caruurta intaad u saarto maasha Allah maanta dhan ay ku noqnoqdaan ee siiro idaba maxaan ku raahdaa u shubtaan oo wasaq iyo waxba ayna ka waxeeyeen maxaan ku raahdaa bakeerigooda ayay hoos ka dhiga doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaad ka heli doontiin faa'iido aad iyo aad u fiican oo maasha Allah tabarakallah ah saas ayuu maasha Allah u qurux badan yahay sida aad u jeedin kaal iska arag waxaan ku dhihi karaa ilmaha maanta dhan ayay ku soo noqnoqanayaan maanta dhan way shushubanayaan waxaan ku dhihi karaa siiro edeb oo kaal iska arag oo nadiif ah ee bakeeriga hoos uga dhiganayaan kaal iska arag waxaan ku dhihi karaa aad iyo aad ayaad uga faa'iidi doontaa ilaahay waxaan ka baryayaa intaan haysan inuu ilaahay siiyo inta haysatan ilaahay u siyaadiyo maanta fiidiyogeena intaas oo ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قلبي غمّة